dhacdo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khartoum taas oo ah kufsi wadareed loo geystay laba gabdhood oo walaalo ah oo galayay imtixaanka dowladda ee ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khartoum intaan kula wadaagin warbixintan oo ah mid aad u naxdin badan waxaan ka codsanay inaad YouTube-ka kusoo birto subscribe dhahdo muuqaalkana like ii saarto gambareelkana furato haddii aan ku bilaabo magaalada Laascaanood laba maalmood ka hor waxa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan dad badanna ay ka murugoodeen ama ay la dareemeen qoyskaas gabdhahooda loo geystay kufsi wadareed xilli ay u fariisanayeen imtixaanka dowladda 12 sano gabdho lagu soo dadaalayay oo mustaqbalkooda lasoo dhisayay ayaa kufsi wadareed xun loo geystay sidoo kale jirdil waxaana geystay kufsigaas 24 nin oo iyaguna ahaa arday wax ka barata magaalada Laascaanood isla markaasna imtixaanka dowladda ku galaysay magaalada Laascaanood ciidamada booliska maamulka SSC Khartoum oo maanta war ka soo saaray kufsiga ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in gabi ahaanba nimankaas la soo qabtay haddana ay ku xirxiran yihiin ama lagu soo xiray saldhigga bartamaha magaalada Laascaanood lana horgeyn doono maxkamadda lana xukumi doono labadan gabdhood ayaa ahaa laba gabdhood oo walaalo ah oo sawirkan halkan inay ka muuqda leh waxayna gabdhahan da'dooda lagu qiyaasay 18 ilaa 19 waana gabdho aad u yar yar nimanka kufsiga gabdhaha u geystay ayaa sidoo kale waxa ay tuuriyo la dhaceen gabdhihii ay kufsadeen sidoo kale waxay u geysteen dhaawacyo iyo jirdil ayay u geysteen sida ay sheegeen booliska SSC Khartoum dhacdadan ayaa waxa ka dhashay kacdoon bulsho kaas oo ka dhashay magaalada Laascaanood ama ka dhacay magaalada Laascaanood waxaana la arkayay haween iyo sidoo kale ragba oo magaalada dhexdeeda ka sameynaya kacdoon aad u ballaaran iyagoo xarumihii dowladda iyo sidoo kale laamiyadiiba dhagax iyo taayiro ku gubay dhagaxna kala daalay xarumihii dowladda waxa ayna codsanayaan in labada gabdhood oo walaalaha ah ay helaaniin cadaalad maadaama kufsi wadareed loo geystay raggan 24 nin ah oo kufsiga u geystay gabdhahan ayaa iyagana da'dooda lagu qiyaasay 25 jir ilaa iyagana 19 jir ayaa lagu qiyaasay waana 24 nin ayaa kufsiga geystay waa tiradii ugu badneed ayaa la leeyahay oo geysata kufsi guud ahaan Soomaaliya kufsiyada laga diiwaangeliyay waana dhacdo aad u xanuun badan sidoo kalena waa laba gabdhood oo walaalo ah oo isku hooyo iyo isku aababa ah qoyskaasna waxa ay maanta dareemayaan dhacdo aad u xanuun badan maadaama gabdho ay muddo badan waqti soo gelinayeen dhacdadaas loo geystay dhanka kale mid ka mid ah haweenka SSC Khartoum kana mid ah maamulka SSC Khartoum ayaa ka hadashay dhacdadan foosho xun oo ka dhacday magaalada Laascaanood sidoo kale bulshada ayay fariin u dirtay wadda kacdoonka jajabinaysana xarumihii dowladda iyo sidoo kale meelaha dowladdu leedahay sida xarumaha dowladda iyo laamiyada oo ah meel bulshada u dhaxaysa waa tan iyadoo arrintaasi ka hadlaysa waxa ayna tiri maaha inaynu u ogolaano inay iyaga iyo bulshada is arkaan waa inaan iska fogeynaa dareensiino waxan ay geysteen foolxumadiisa iyo waxa ka dhalan karaya haweenka reer SSC Khartoum iyo si guud haweenka Soomaaliyeed waxay lafdhabar u yihiin bulsho kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay mudan yihiin in la ixtiraamo la karaameeyo badbaado dhammaystiran ay helaan haddii ay taasi dhici weydo oo qof inaga mid ah kufsi ama jirdil ama wax uusan u qalmin lagula kaco dhammaanteen waxayna saaran waajib ah inaan ka kacno inaan diidno af adin iyo si kasta wax loo qaban karayno bulshada reer SSC Khartoum si gaar haweenka reer SSC Khartoum ee kacdoonka sameeyay maanta waxaan ka codsan lahaa in aynu ku sinno laamaha ammaanka iyo cadaaladda muddadu waa 4 cisho kiis kuma soo dhamaado waqti bay qaataa inuu kiis soo dhamaado dii aynu aragno kiiskaas inuu socon waayo waa wax furan inaynu mudaharaadno kacdoonna xaqeena soo dhaxsano laakiin iyadoo kiiska gacanta lagu hayo laamihii ammaanka iyo cadaaladuna ay gacanta ku hayaan ma aha inaynu degdegno mudaharaadka aynu wadno waa wax wanaagsan inaynu isku diirno
waa wax wanaagsan inaynu muujino sidaynu uga xunnahay arrinkan mudaharaadada aynu wadno haddii aynaan joojin karin aynu ka dhigno mudaharaad salmiye laamiyada goobaha ganacsiga iyo sidoo kale xarumaha dowladda ee aynu mid ka mid ah haddaba haddii aan halka uga nimaano codka gabadhaas ka mid ah dowladda SSC Khartoum mid ka mid ah gabdhihii aan dhahay wiilashii gabadha kufsiga u geystay walaashood aan dhahay mid ka mid ah wiilashii kufsiga labada gabdhood u geystay walaashood oo fariin commentiga walaalkeed oo Facebooka la soo dhigay u soo gashay ayaa sida tan tiri waxay tiri see ku difaacaa adoo dhiigaygii ah oo walaalkay ah baad gabar anigoo kala ah sharafteedii iyo nolosheedii ku cayaartay alla ma ooyaa maxaa sameeyaa bay tiri runtii waxay muujisay dhanna walaalkeed inuu walaalkeed yahay bay muujisay dhanka kalena waxay muujisay in dhacdadan ay la dareemayso gabdhihii kufsiga qoyskooda loo geystay dhacdooyinka kufsiga ayaa dhanka Soomaalida dhexdeeda aad ugu soo badanaya waana dalalka ugu badan oo kiisaska kufsiga laga diiwaangeliyo guud ahaan Soomaaliya Puntland iyo SSC Khartoum oo dhawaan iyaduna SSC ka go'day waxay ka mid yihiin meelaha aad looga diiwaangeliyo kufsiga bishii waxa laga yaabaa in dhowr iyo 10 kufsi laga diiwaangeliyo guud ahaan ama aan dhahay gobolkii kaliya laga diiwaangeliyo dhowr iyo 10 kufsi waana arrin halis ah oo ku soo badanaysa geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland waxayna u baahan tahay in si wada jir ah ay bulshadu iyo sidoo kale dowladuna ay si wada jir ah go'aamo adag uga qaataanin si go'aamadaasi ay u cabsi geliyaanin dadka arrimaha foosha xun ku dhacaya intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa halkan haddaa nala soo gaartay markale wax ka codsanaya inaa youtube-ka kusoo biirto subscribe dhahdo waxaan kusoo gudbinaa wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaalida iyo sidoo kale caalamkaba